hayb ahaan markii yidhaaha aniga adeerayaashee talada dalka soo qabtay muddo ninba muddo uu soo haayay ayaa ummadda Soomaaliyeed calaag ku wada calaagna aad looga fiican yahay waaye talada maalin bay kula sineed maalinka ay kula sineed wixii ummadda aad ku soo jiida lahayd ama se Ilaahay kuma samadiida aad ugu soo noqon lahayd inaad uga tagata ayaa wanaagsan hadda maanta walahay nagu ergadeen sida Adeer Axmed sheegay si walahay nagu ergadeen oo Ilaahay kuma samadiida bariga ay nagu soo noqdaan ama Ilaahay kuma samadiida ay buuqay balwamka nagu la kacshaan oo hadda aniga aan ogahay ma jiraan sida dadkiinba waxay yiraahdeen maalinta Jimcaha oo maanta ay khamiis ka tahay waxay yiraahdeen mudaaharaada jira ra'yiga ummadda Soomaaliyeed lagu cabiray ummadda Soomaaliyeed ra'yigeedu waa cabiran yahay wadada saxda ah oo Ilaahay kuma samadiiday ummadda ay ku caafimaad lahaydna wax ku socdaan Ilaahay kuma samadiiday wax walba socdayna ayaga laga widi waayay darafta uga dhig darafta kale uga dhig Ilaahay kuma samadiiday waa kambani silsilada shisheeye kalkaal midnimada Soomaaliyeed ay dhibayso waranku maxkamadda in saarayna hadda yaraan idin saari lahayd qofna gacmaha nagama hayso haddii Ilaahay kuma samadiiday wix aad dhunsateen aan idin qabsayna hadda yaraan idin qabsan lahayd Soomaali kama jiifto xilliga la idin qabsan lahayd waa cayimanta haddaad isleedihiin dawladnimada ha burburto oo Ilaahay kuma samadiiday ha lagu kala rarto wixii aad shalay dhunsateen si aan la idin ku qabsan haddaad isleedeen waa idin ka xageynaa weydin ognahay wax maanta qarsoon ma waa idin ka xageynaa waa ognahay ummad Soomaaliyeed ka urkacsan ummad Soomaaliyeed waxba uma haysaan haddaad wax u haysaan maalinta aad xukunka joogteen yaad wax u qaban lahaydeen marka sidaas daraadeed ummadda ha ajarina laydin kuma ajarna Ilaahay kuma samadiiday wax allaala iyo wixii aad gashiin iyo wixii aad gudiin waad ogtihiin wixii aad ummadda Soomaaliyeed ku ergateen ummaddan waa ogtahay idinkuna waad ogtihiin sida xildhibaan dalxaba oo sheegay CV-giina gadaal u fiiriya buuggiina gadaal u eega markaad buuggiina gadaal u eegtaan ka bacdi ummadda hor imaado wax u sheega laakiin nin asaga tiisi maalinkii ay joogtay kaalintiisi gabay in ummadda kala kaalinteera ku qabsado ama Ilaahay kuma samadiiday dalka oo burbur u horseeda xaraam caleek qof ka aqbalaysa ama ka akhrisaysa ma jirto marka sida daraadeed deegaanka Jinalaan jooga aniga hadda Ilaahay kuma samadiiday waxaan u joogana waxa waaye hooyada cadawga gacantiisa ku jirto saad uga soo saari doontaa adigana mid aan dhowr sano ka hor walaalahay iyo saaxiibaday aan uga soo tagay oo cadawga ka soo saaray aan haddana maanta cadawga dhax abuura aqli gal ma noqonayso qof aqbalaysa ma jirto qof idin ka yeelaysa ma jirto ummadda Soomaaliyeed waa soo jeedaa ma jiifto marka waqti ha iska dhuminina Ilaahay kuma samadiiday xumaan ha badsanina dimbi waa idin yaala halka idin yaalo sida aad uga baxsan lahaydana cariiri ku jirto halka la ku kor daranina marka waxaan idin dhihi lahay meesha aad joogteen yoonkii 4 mar aad warqadaha ka soo saartiin ku ekaada haddaad ku ekaawaysiin gacmaha la isla imaha aniga hadda Ilaahay kuma samadiiday habartay cadaha meesha jirto ilmahaygi oo sibjiqi ah oo sumaqadaha joogaan qax iyo Ilaahay kuma samadiiday iyo buuqan maanta Ilaahay nagu qaban shaqsi inuu u qabto dan leh sax ma ah qof laga yeelaan ma jirto qof qaadaysana ma jirto doorasho haddii dalka aad ka rabteen qof idin dooramaysa idinka dad nool iska dhaaf iyo dale waxa raxaata idin raacsamayn erigeyga waxariis la idin raacima hataa wax kale iska baday marka ummadda ha dhibina idinka hays dhibinina hays kalifinina dhib kale haysu geysanina in gacmaha la galo ummadda ha ku kalifinina wallaahi wa billaahi wa tallaahi aniga dad aad ii xigtaan qof idin soo gurmaysanaysan jir